ورئي مساند لها نمك واسكور هيان أو واسوجيهين ورحسن ديقو يا عبد الكريم حسين قولد يا شرشور يا كر يا موسى جودان واسكور هيان يسمع الهر ورئي مساند لها بل دقيست أودي هوجي وحقيقة يرونتي شيء سر فكتي وربل بقى هوجن إلى دقيست marka daaroodkii uu qancinaa kowdhi aniga u jawaabi maayo hadda waxay la socdo wasiirada ay la socdo ha u jawaabina waa isogay waana wada hadalay daarood buu qancinaya Cabdikariim Xuseen Guuleed wari misaanid lahaa waxay waska warayaan oo isogyihiin bal Xasan Dhiiqana dhageysta waa kale horta midaan ku sheegay Xasan fikirkan qabo uu qaba Xasan ani gabadhu qaba abtigeedana ma fahmin Xasan Dhiiqa waa ninkaad ogeydeen wallahi oday hoogay warka uu sheegaya waa dhab waana xaqiiqo inna lillahi وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل توعنا ونكسن لما أنت ماهر تجوب كستي وجور كستا شوكتان با إلهي واحد كبر يا إبراهيم يا عفماد يا عباد الصبن يقول أنت نبتين الله ونحرسين تبوكته الله عافية أنت مرادنا مراد كذو بلا معصية وبالرمضان الله سيقول سنة هذا برنامج كاني افتمد حقيقي كي هلقك يسره يعيب يلا ما أرك واحد دوك تعيب توتقانين أنا واحد هران وجاي dadka qaarkii baan wali waxaan ka dhaadhacsanayne war imisaanid laha war imisaanidii sheegay war imisaan la Xasan Dhiiqo iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed damu jadiid iyo waxa weeye iyo Muuse Juudaan iyo Ismaaciil Horar war way soo gihin war waa iska war hayaan war ninkani ma xishoodo Xasan Dhiiqo soo ninkii lahaa ma ninkii umada Soomaaliyeed hortaayna Xasan Dhiiqo qabyaalada iyo qarannimadu ma kala maarmaan Soomaaliyeed ee shir afka laga buuxo wax iliyartu isqabsatay kala ha qabyaalada iyo qabiilku ma qabyaalada iyo qarannimadu iyo dawladnimadu kala maarmi maayaan ninkii lahaa Soomaaliyeed war ninkii waxa weeye labada sanadood afka abuurka ka sii deynayay ee maalmo ciidanka urursanayay ee tolaaya hawiyo ilaha Soomaaliyeed war ma ninkaasaad ka sugaysaan maanta wallaahi odahoogay warka uu sheegay waa xaqiiq waana biyo kama dhibcaan waxa uu ka hadlayaana waa dhab sida uu inoogu sheegay baana ka run ah bal waxaan idin rabaa inaan idin dhegeysiyo siro iyo codad odahoogay laga duubay oo jamaahiirtu ka duubtay jamaahiirtu umadeena maaha sirdoonka jamaahiirtu wallaahi waxa ku yiri Muusaad iyo CIA iyo magarasay saas iyo Pakistan iyo waxa suluuq bay galayeen waxa ka daran ba sirdoonka jamaahiirta inta xabada ku dagaalamaysa iyo inta afka iyo social media iyo warbaahinta waxa weeye adduunka gaarsiinaysa ee albaabada soo xidhaysa waxa ka daran ciidamada jamaahiirta ee sirdoonka ciidamadii sirdoonka ee jamaahiirta baa ninkii wareystay odahoogay waxaad ogeydeen hore u soo daawateen oo u maqasheen Soomaaliya wuxuu leeyahay $200 baan haystaa shirkadda Hormuud oo iyaduna qayb weyn ka qaadanaysa dagaalka SSC dagaalka qayb weyn bay Hormuud kaga jirtaa dhaqaalaha ugu badanna ayada bixinaysa ila Jimcaale aniga aad arkaysaan aniga geedka weyn eegay islaamka waxa weeye islaamka iska dhigay ma garanaysaa waxa weeye garkii iyo sunniga ka muuqdo qayb weyn buu ka yahay dagaalka urur Soomaali iyo shuruushuur odagana dadka shidaalka ku shubayay waxa weeye lacagta siinayay si ay kowka odahoogay baan afkiisa ka sheegay in shirkadda Hormuud ay fangaraynayso waxa ka hadalsiiyay odagana waa jamaahiirta weey bal waxaan idin dhegeysiinayaa oo aan rabaa inaan dhegeysiyo Cabdikariim Guuleed ninkii ergeyga la baxay dhagajuun iyo waxa weeye hoogay wixii dhex maray iyo wixii Xasan Dhiiqo iyo hoogay dhex maray in ninkan la soo diray ninkan wuxuu waramayaa jaaliyad buu haystaa inuu waramayo niman dhalinyaro oo jamaahiirta kamid ah ma doonayo magacyadooda iyo meesha ku nool yihiin iyo qabaaladooda inaan sheego sababtoo waa sir weey waa sirdoon weey looma baahno social media in laga sheego ayaa ninkan warka ka dhuray wuxuu haystaa jaaliyadii urur Soomaali iyo shuruushuur iyo cabaad weyn inuu la hadlayo afku furtay bal dhageysta Cabdikariim Guuleed isaga wax dhex maray iyo xilligu la hadlay iyo ciidan la joogtay xitaa wuxuu sheegayaa nin dhulbaanta oo la joogay oo waxa weeye wada hadleen waa xaqiiq weey waa fact weey waxaanu ka hadlay waa wax dhab oo jira weey yaan been leedin sheegno wax been leedin ku soo qorin war kama hayno anagu Cabdikariim Guuleed oo beeniyay inuu odahoogay la hadlay waxba kama jiraan ilaa ina Jimcaale Axmed Jimcaale baa lacagta iyo dhaqaalaha bixinaya aqligu noo shaqeeyo indhaha kala fura ila dhageysta waa kale
ergeyga aniga u jawaabi maayo ergeyga hadda ka hor baa intuu dambi gala aniga cafis u dalbay beesha maxamed iraabe duduble saleebaan isku dhaceen ka maslaxeeyay waa aqoon waa leeyahay laakiin waa nin dabeecad xun ilaah baan u dhaliyay anigu markaan la hadlayay 8 nin oo hawiya la joogtay oo madaxa Soomaaliya dhul bahanta ayaa maalintii la joogo axta aan la hadlayay oo macnaas oo dhaay suldaan oo kala gooni Soomaaliya iyo Somaliland ma yaso Soomaaliya waa Soomaaliya asaga laftiisu waa ka qanciyay waxaarniyow xuduudii waqooyiga Ingiriiska laga qaatay dhul bahanta ku jiraan marka nin walbana dhulkiisa taaka kama dhiibi karo aniguna waxaan wadaa waa masaalaxaas Soomaaliyeed Soomaaliya haduu shiina daaroodu leeshiina dibka Soomaaliya naga haraya madaxweyne la aqoonsan yahay Soomaaliya oo maanayso Somaliland iyo Soomaaliya Djibouti saddex wadan oo iska tagan marka daaroodkii uu qancina koodhi aniga u jawaabi maayo hadda waxay la soo wasiirada ila soo laha u jawaabina daaroodku qancinayaa buu yiri Cabdikariim Guuleed Dhagajuun waanu wada hadalnay 4 nin oo hawiya ama 8 nin hawiya baa la joogay nin dhul bahanta aan xitaa halka ku wada hadalay buu yiri odaygu waxa xaqiiqa uu ka hadlaya sababtoo ah waxaad ku garataa Cabdikariim Guuleed marka odaygan codka laga soo duwo yiri waa ismaqalay Cabdikariim Guuleed baa ismaqalay markiiba boosti buu soo dhigay Cabdikariim Guuleed uu leeyahay anigu ninkaas ma arag ismana maqal hoosna waa la iska wacay odaygii marka qolo jaaliyad iskaga soo dhigtay jamaahiirta sirdoonka baa wareysatay wuxuu leeyahay ninkaas daarood buu ismaqashinaya 8 nin oo hawiya baa meesha joogay nin dhul bahanta baan halka ku wada hadalay xaaladdan wuu ogyahay wuuna ka warhaya anigana wasiirada ila soo hadlay waxay yiraahdeen ha u jawaabin ninkani markuu sida u waramayo uma haysto qof sirdoona inuu u waramayo wuxuu haystaa jaaliyadihii urur Soomaali iyo shurunshuur iyo shakada cabaagoyntii Muuse Juudaan nafiska ka raadinayay inuu u waramayo waxaad dhageysateen isagoo wuxuu leeyahay jeebka iga maranay lacagtu waa qaybiyo 10 u qaybiye waxa weeye odayga laga shanqariyo nabadoonka laga shaqeeyo isagoo waa dhageysateen isagoo wuxuu leeyahay hormuud baa $3,000 ii soo dirtay saddexdaasaan ku hawlgalay ilaa lacag 10,000 baa iga soo wiilal iyo gabdho soo hormuudna 3,000 bay siisay Axmed Nuur Jimcaale 3,000 buu siiyay isagoo lana waan idin hayaa horta ninku warka uu sheegay waa xaqiiqo horaana idinku soo xakuri war Cabdikariim Guuleed Dhagajuun iyo Xasan Dhiiqo iyo Ismaaciil Horor iyo Muuse Juudaan eegay way iska warhayaan wayna ogyihiin waa doogay deeyay Djibouti tageen oo halka ku shidayeen hubka iyo ciidanka markii la soo dhibay Xasan Dhiiqo caadi buu arkay anu waxaan la yaabanahay cid Xasan Dhiiqo u haysato inuu waxna la yeeli karo waxna naga dhimi karo war Xasan Dhiiqo waxna kuma yeeli karo waxna kuma dhimi karo dawlad Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka jirtaana oo awood lehina wallahi bay soo jirnay billahi tallahi waa aniga ku dhaartay xasanna ninkii dhirbaaxa oo caayo aflagaadeeya buu wax taraa inaga waxba inama yeeli karo galka seefta kala baxa ninka si toos ah loola hadlo wuxuu tari karaa wuxuu maanta ina yeeli karaa Xasan Dhiiqo wax allaaliyo wuxuu ina yeeli karo iyo wuxuu ina tari kara midna ma jirto bal waxaad la dhageysataan cod kale oo si rabaan idin hayaa ilaa idinka ku qanci waaye cod kale oo si rabaan idin hayaa Xasan Dhiiqo wuxuu leeyahay arrinkan waa nala ogyahay waa run waa xaqiiq weey wax run uu ka hadlaya odagu daalin ha ahaado oo umada Soomaaliyeed iyo daalinimaha ka shaqeeyo laakiin waxaanu ka hadlayaa waa wax fakti ah oo run oo xaqiiqo ah oo jira illa soo geeyay uu ka hadlaya in laga warhayo ka hadlaya in dhaqaale lagu bixiyo uu ka hadlaya in waxa weey la daba tagay dhaqaalihii waxaan la wada ogyahay buu ka hadlaya intaas uu sheegay intaasna waa xaqiiqo jirta bal aan dhageysano markan Xasan Dhiiqo iyo isaga waxa dhex maray iyo Xasan Dhiiqo sida uu u arko iyo warbixintu ka bixiyay oday hoogi ila dhageysto horta midaan ku sheegay Xasan fikirkan qabo uu qaba Xasan ani gabadhu qaba abtigeedana ma fahanti la abtigeed saddexaadana aniga Xasan ana soo dhistay sanadkii hore aniga 6 milyan aan gelinay 2 milyan aniga dib igu soo celiyay shirkadda Hormuud sanadkaana waan maal gelinay uu ku fadhiyaa markaas uu ninka xataa Xasan soo saaray waa nin dibla professor Shirwa markuu dhimanay wiilku gacanta saas u haysta waa Xasan nin dibla waa abgal waa u dhashay hooyadiisna xawaalo waa ninka nin jira waa nin siyaasi marka aniga wax waaye shacabka inay isfahansiyo oo hadii cod noqotana Soomaali 70% oo codayaan hadii baarlamaan noqotana 214 codan haysta aniga oo mareeya jooga oo xataa kula soo hadalsiina ina اعترافka Somaliland ay tahay dawlad Soomaaliyeed oo Djibouti iyo Soomaaliya ka weyn aad maqlaysaan
حلي حسن ديقة أرنك ولا لأجيها حسن ديقة أنا قبضنا قبو أبتي أنا وابع عائلة ض وعائلة حسننا وانك أكتهين قرشوا يا عقلي يا الدمير والله هو جاي بقى كعقلي بدن أو كدمير في عم بنقول سببتها نكد ومدن مدحوينا لوغا dhigay ee deegaanadan uu isagu mas'uul ka yahay maanta hay'adaha caalamka iyo caalamku habeen dhawato wuxuu sameeyay waxa la soo hadlay qoliyahan beesha caalamka iyo wax la yiraahdo baa xasan oo dalka meesha madaxweyne ka maya buu anu madaxweyne uma yihi soo leesanaaga cayn xasan musabixi baa madaxweyne waa musabixi halagala xisaabtamo waa ninka arkaysan horteena ka lahaa dawladda Soomaaliland هلا هذا الشو وذا هذا هالقول لما ومدحوينا يدور دي شعب كودو هيس فهمان تي أون بي اسمرين أيو باش عالم كويري دتك بابا يا بابا أفريكانكي يا عدانكي وردالك ما يعذو مدحوينا كاين بالي سومالي قورمي كلا قوضة أنا ورك ما هيناه قورمي سومالي كلا قوضة لين هاي أذاهن يوحى على شقوي كنا ولا الدولة ده أنا قطب يا عالم كنا نلعب باشريه حسدي حسن وحوي مسجودا لويا مدحوينا ما ينك على قلع حسابتهم odayna warka uu sheegayo leeyahay warninkan waa iska warhaynaa waxa aan qabuuna ila qaba waa dab waa xaqiiqo waxaan doonayaa inaan ka dabageeyo dadka wali aaminsan xasan dhiiqo inuu waxna tari karo waxna yeeli karo madaxweyne Soomaaliyeedna uu yahay inuu la wala yahay wax allaale wuxuu ku soo kordhin kara maanta SSC Khaatumo State of Somalia aanay jirin wax uu ka dhimi karaana aanay jirin maanta ciidan buu soo gelin karaa maanta ciidan gurmada miyuu ku keeni karaa miyuu ku hadli karaa ma ku soo weerari karaa mar haddaanu ku weerari karin mar haddaanu warqad inta soo saaray oo oran karin Muuse Judaan oo pastor baa tahay deegaanada ka baxo Soomaaliya waa mid mar haddaanu oran karin SSC Somaliland ba kamid tahay maxaad ka sugaysaa waxaan aad uga amranaysid oo aad ka sugaysid maxay tahay وريك فتدي سيبا قاون واكا اسغا iyo Muuse Judaan Ismaaciil Horar baa haysataan Xasan Dhiiqo haydiin muuqdo war Xasan Dhiiqo haydiin muuqdo hada baarlamaantiin hadaad maamul goboleedtiin hadaad ismatihiin hadaad aqoonyahan tihiin hadaad jamaahiir tihiin hadaad ka qoriga sita tahay hadaad social media ku jira tahay war ku muuqdo kana ka liitay Muuse Judaan waa inaad saysaan oo isdagaasheen وحبط بايدين دحايسا وافلا قرتي اسماعيل هوررنا وانين كو سو راعي عدوغاي كو سو راعي وان قرتي لكن نكر عاد اسكا غران لادهين ايغي waxa weeye fiila Soomaaliya fadhiyay qabyaaladu biyo dhigtay caamada kaliita eegi adeerkaas haydiin muuqdo arinkani waa arin xiran illa shirkadahoodii baa ku jira hormuud ina jimcaalahan wadaadka iska dhigaya baa dhaqaale ku bixinaya urur Soomaaliya shuruur Soomaali wuxuuna doonayaa inuu deegaanadana ka ganacsado shirkadahoodu ku yaalaan meel waa la isdhex maro war walaa dib la isugu dhex maray iyo biliyo tolle dib inaan la isugu dhex maray ma kuri anagu dagaalna waa naqaana nabadna waa naqaana heshiisna waa naqaana colaadna waa naqaana anu bisay la waaqaana biceelina waa waaqaana waxa u dhaxeeya yacood baa la dhahay yacood war dagaalna waa qaana nin ugu jira nabadna anigu waa qaana laakiin ولا اللي سوسو هلابن إني بلي يطلع نمان كانوا وبررسين إلى هاي بقى فشلي سبب توقع سومالي الحكومة ماذا نيلي جوجشين سؤال ورقضي هاجي يا حسن ديقة يا عبد الكريم جولد يا إسماعيل هور يا موسى جودان واسكو عقلي أو والله يا بانكود موسى جودان كاس وعوي الحبة تسكو هينسنو أو هينسنو بقى والله يكون شركة عقل بدن حسن ديقة سا موسى جودان waxa Xasan Dhiiqo maanta yeelayo Muuse Judaan kama yeelan Xasan Dhiiqo waxa Xasan Dhiiqo maanta ka yeelayo Muuse Judaan iyo Ismaaciil Horarna kama yeelan Muuse Judaanna kama yeelan Xasan Dhiiqo waa inay rigeysteen oo ay meel dhigteen oo say doonaan ka yeelan marka arintan waa fakta waana xaqiiqo Axmed Nuur Jimcaale inuu dagaalka ku jiro cadaynteedii baan idahay waatan ila dhigeysto isaga iyo shirkadiisu way dhaqaale ku bixinayaan dagaalka SSC iyo waxa weeye harti inay dagaal ku bixinayaan urur Soomaaliya ka dambeeyay inay Jimcaale ila dhageysto waatan ku galay waxa xamar aad arkayso
fankaas anaa bixinayay marmar gabdho xoogaa iga bixinaya wallaahi aniga hadda meeshan waxaa la soo galay 3,300 oo shirkadda hormuud ii soo dirtay hadda $200 kaysa waa odayaashii dadkina waxnaaso dowladda Somaliland hadee booqashadeeda ku fargareynaysaa kulay sugotina waa leeyahay laakiin wax si afkayga maan dadkii la socdo waa dad dhalinyaro waa dad xasaasa waxaas oo dhan aan dabaray marka dajaaladii shirkadda hormuud baa ii soo dirtay $3,000 gabdhay caawiyo waa jireen axmed nuur jimcaale waa ka dagaalka qayb ku yii warwali waad hurdaan wali dad hurdabaatiina wallaahi oo bilaahi oo tallaahi warka hoogay sheegaya inaan xabad been kaga jirin maamul waana nimankaad ogeydeen waa qowleysatadii waa qarandiidkii waa daalimiintii waa iimaan laawayaashii waa dhiigmiiratadii waa argagixisadii waa SNM iyo juudaankeedii Ismaaciil Horor iyo Xasan Dhiiqo waa isku sharci waxaan ku Muuse Juudaan sharciga qabta baa Xasan Dhiiqana qabanaya wax dawladnimo liyaado iyo sharaf dambe ah sutaan iyo iclaam dambe ah bixisaan iyo baaq dambe oo waxa way Xasan Dhiiqo kala hadli kartaan iyo waa agaasime ay ku shaqaysanayeen Ismaaciil Horor iyo Muuse Juudaan oday hoogay baa wallahi ka fiican oo ka caqli badan oo runtii xaqiiqada sheegay jamaahirta aad iyo aad baa u maasantiin war guul iyo gobonimo mar haddaynu dabadoodii aragnay meel aan rabay roob ma igu hela weeye si sheer garay barnaamijka guul iyo gobonimo inoo soo hogad haddaynu si toos ah dagaalka u galaynaa gala dagaalka oo toos abaan ku hadday media tahay iyo hadday waxa weeye dawladnimo tahay iyo hadday maamul tahay iyo hadday jamaahir tahay iyo hadday xabad tahay af iyo adin tahay haddaanu dagaalka si toos ah u galaynaa ee waxaan rabay inaan idin tuso in dagaalka loo dhan yahay خير يا بركة هذه رجالنا ولا كعفتها بولري يا برنامج كيف تمين تحققوا كذا تاني تدبوا كل مدونه برنامج حياتك ورسل النوادين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.